waxaan ognahay ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre in maalmaha soo socdo kala fadhiga baarlamaanka marka uu furmo 2 bisha Febraayo in halkaas xilka loo xayuubin doono ra'iisul wasaaraha. Hadaba in ka badan 200 oo xildhibaan ayaa waxa ay mooshinka ay saxiixeen in xilka loo qaadi doono ra'iisul wasaaraha Xamza Cabdi Barre. Hadaba daawada ma ogtahay qorshaha socdo oo ka socdo filla Soomaaliya in ay tahay in ra'iisul wasaaraha halkaas lagu diro maalmaha soo socdo ama saacadaha soo socdo waxa la dhigi doonaa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xamza Cabdi Barre. Hadaba Xamza Cabdi Barre maxaa la isku khilaafay maxaa waay wax magaciisa iska hormaadka uu ka imaaday asagii madaxweynaha. Hadaba waxaan ognahay Xamza Cabdi Barre in marka hore dadkiisi uu ka soo jooday lagu diray qabiilkiisi uu ka soo jooday ee daarood laga horkeenay maamulkii Jubbaland uu ka soo horjooday. Hadaba intaas oo dhan asaga oo u maraya Xasan Sheekh Maxamuud dartiis in maanta haddana xilka laga xayuubiyo aad iyo aad waxay u tahay wax nasiib darro ah. Inkastoo aan ognahay kala guurka siyaasadda sanadka ugu dambeeyay ama waqti ugu dambeeyay in la iska horkeeno ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale madaxweynaha way dhacdaa wax maanta cusub oo aan ognahay ama maanta wax aan ugu cusbeen maahan haddii aan nahay Soomaali. balse daawada ma ogtahay in ra'iisul wasaaraha in ka badan 200 oo xildhibaan ee qalinka ay ku duugeen mooshin ka dhan ah in xukuumadda ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre la rido halkaas laga soo bilaabo xukuumad hor leh. Hadaba Xamza Cabdi Barre maanta dadkiisa markii laga soo tago magaalo xataa tuulo kamid ah xataa ma tagi karo oo waxa uu u tagi karin dadkii asaga uu matalayay wax uu muusan qaban. dadkii asaga uu matalayay waa laga horkeenay waa aragnay Puntland waa aragnay Jubbaland waa aragnay inkastoo dagaalada hadda ugu dambeeyay Jubbaland ay la gashay dawladda federaalka Soomaaliya uu ka koob ka ahaa ragii horkacay uu ahaa Xamza Cabdi Barre. Hadaba magaalada Ankara ee wadanka Turkiga waxa ku yeeshay shir xasaasi ah qaar kamid ah xildhibaanada xukuumadda federaalka Soomaaliya kuwaasi oo hordhigeen in ay rabaan in xukuumadda ay ka qaadaan xilka ama ay ka xayuubiyaan xilka walow qorshahan gadaal ay ka wada filla Soomaaliya isagana qalinka ayuu ku duugay oo wuxuu yiri intaan ka badan ma celin kari imaada oo soo diyaar garooba sidaan markii loo furo kulanka baarlamaanka. Hadaba waxaan sugnaabo waxa waaye waa kulanka ka dhici doona 2 bisha Febraayo markii uu furmo golaha baarlamaanka. Hadaba marka Xamza Cabdi Barre waxa uu maalin hore soo dhigay ama maalin hore oo si toos ah uu sheegay in uu yiri dawladda ama waa in sida ugu dhaqsiyaha badan loo qabtaa doorasho loo dhan yahay. Inkastoo maalmahan guddiga doorashooyinka hadleen inkastoo mucaaradkii hadleen inkastoo ay hadleen dad far badan oo xoogaa leh oo waliba ay ka dheediyeen sida uu u wado Xasan Sheekh Maxamuud talada dalka inay ahayn si macquul ah. Hadaba Xamza Cabdi Barre waa la yaabana hadalkaas maalin uu sheegay ama qoraalkaas uu soo dhigay oo uu yiri dalka waa doorasho la isla ogol yahay waa inay ka dhacdaa. Hadaba taasi miyuu aqoonsaday mise waxyaalo kale uu dheeriyay ayuu aqoonsaday. inta badan dadka aan ka soo xignay qoraalka ama sidoo kale xogaha hoose waxay sheegayaan in Xamza Cabdi Barre danihii laga lahaa ama dantii ugu weyneed oo laga lahaa in laga fushtay sidaasina ay tahay in filla Soomaaliya uu baneeyo sidaasina ay tahay in boorsooyinka uu ka xirxirto filla Soomaaliya. dhinaca kale waxaan ogeyn maamulka gobolka Gedo oo horkacay Cabdullaahi Shimbir in asagana iyo dawladda federaalka Soomaaliya inay isku dhaceen inta badan waxyaalo la isku dhacay meesha waa ka sheegi doonaa. inta badan waxyaalo la isku dhacay waxa kamid ah in xilalka dadka magacaawayo ama sidoo kale inta badan dadka ay qusayso in la soo magacaabo ay noqotay ayadana in meesha la isku qabsado. inkastoo hore uu taageersanaa nidaamka Jubbaland Cabdullaahi Shimbir haddana dawladda federaalka Soomaaliya ka soo qaaday Kismaayo ayada uu la yeeshay xiriir toos ah ayada uu la yeeshay in ay isfahmaan dawladna halkaas laga soo qaado oo la keenay magaalo madaxda gobolka Gedo ee Galbaharey ayaa waxay dhacday in adana la isfahmi waayo. waxaan ogeyn wasiirka amniga ee Farataag iyo sidoo kale ee wasiirada u jooga gobolka Gedo ama laga soo doortay deegaan ahaan ay tahay in ay imaadeen magaalada Galbaharey ee gobolka Gedo. Hadaba Galbaharey waxa ka dhacay sidoo kale
waxa ay kala kulmeen halkaan kuma falanqeyn doono oo wada ogtiin. haddaba intaan u gudagelin warbixinta soo dhameystiran halka sida tooska aan uga daawanaysaan waa barteena YouTube-ka ee Imaan Official. fadlan daawada muuqaalka like saar, muuqaalka waa muuqaalkaadii, YouTube-kana waa YouTube-kaadii. fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe dhawo si uu kuu soo gaaro muuqaal walba oo aan soo dhigno. waaga gobolka Gedo Cabdullaahi Shimbir iyo sidoo kale waxa isku fahmi waayay dowladda federaalka Soomaaliya. haddaba Cabdullaahi Shimbir waxa uu rabay in uu asaga qolo kasto ama wax xil kasto oo la magacaabayo in uu soo magacaabo. dhinaca kale dowladda federaalka Soomaaliya ayadana waxay rabtay in ay iskaga shaqeysato ninka la yiraahdo Cabdullaahi Shimbir, taasi oo isfaham waa uu soo kala dhaxgalay labadaasi ay isfaham waayeen. dowladda ay noqotay in halkaasi dowladda uu ugu jiro xiriirkii kala dhaxeeyay maamulka gobolka Gedo uu hogaamiyo Cabdullaahi Shimbir iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya. haddaba Xasan Sheekh Maxamuud oo u soo diray wafdi aan ogeyn oo horkacay wasiirka amniga gobolka Gedo ayaa madaxweynaha fariin waxa gaartay in la gobolka Gedo gacan kuma hayno oo ninkii Cabdullaahi Shimbir ahaa waa isfaham weynay wax kastana wuxuu rabaa in asaga uu soo magacaabo. haddaba dakhli kasto waxay rabtay dowladda federaalka Soomaaliya in ay soo maro. Cabdullaahi Shimbirna wuxuu rabay wax kasto oo la magacaabayo wax kasto oo maanta gobolka Gedo ka jiro inuu asaga maamulo. isfaham waa darteed oo soo kala dhaxgalay ay Xasan Sheekh Maxamuudna waxa ay gaartay in gobolka Gedo gacanta lagu heynin. sidaas darteed uu Xasan Sheekh Maxamuud yiri Xamzo waxaad ugu fashilisay dagaalkii Jubbaland aan la galay. haddii ahaan lahayd dhinaca militariga oo wixii aan aragnay baa ka dhacay Raas Kamboni, haddii ahaan lahayd Kulbiyo waa wada aragteen wixii ka dhacay. degmada Doolow wixii ka dhacay waa aragteen. haddaba maanta gobolka Gedo oo gacanta ay ku hayn boorsooyinkeena ka xirxirta filla Soomaaliya intaan ka badan lama joogeyno ayuu Xasan Sheekh Maxamuud asagoo ku sugan dalka Masar sidaas aan ka soo xignay ila ku dhow isla madaxtooyada filla Soomaaliya. haddaba maalmaha soo socdo wax la qariyahay ugu imaanin wixii runta oo aadan ogeyn daawade halkaan ayaa ka daawataa wixii xaqiiqaha ka qarsoon bulshada Soomaaliyeed ee filla Soomaaliya ay dhex taagan tahay ama filla Soomaaliya ay dadka sida kale ugu fasho ama sida kale ay u sheegto bulshada halkaan ugu soo barignaa. aniga muhiim mucaarad balse waxaan ahay nin kaliya xogaha rasmiga ama xaqiiqada rasmiga soo gudbiyo. haddaba maalmaha soo socdo waxa aan sugnaabo waa madaxweynaha iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha oo kala baxo waxaana kala saaray inta badan xukuumadda waxa kala saaray baarlamaanka. inkastoo Xasan Sheekh Maxamuud oo baarlamaanka uu asaga gacanta ku hayo sida uu rabana uu ka yeesho ayaa waxa uu qalinka ku duugay ama waxa uu golihiisa baarlamaanka uu si hoose ugu sheegay in Xamze ay dhaafiyaan markaan ay dhaafiyaan kulli cid soo socoto wada ognahay balse ka hor dhici meene. laakiin adiga sidee bay kula tahay daawade muuqaalka daawanaysid in Xamze Cabdi Barre la dhaafiyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka ama ra'iisul wasaaraha dalka? sidee bay kula tahay wasiirka koowaad ee dalka Xamze Cabdi Barre in asaga iyo xukuumaddiisa la rido? sidee kula tahay iyo sida aad u aragtid qaybta hoose commentiga wixii fikirkaadii faalaada nagu dhaaf. intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa wixii kale oo ka soo kordhaa halkaan ayaa si toos ugu daawanaysaan. sidaas iyo nabadgelyo.